saaxiibayaal soo dhawaada dhammaantiin ku soo dhawaada dhigaal academy waxaan ku baranaynaa halkan cashirkii ahaa psychology ama fikirka aan ku fikirayno marka aan suuqa ka ganacsanayno ogow waxa kaa dhigi karo guulaysta oo suuqan natiijo ka keena waxay ku xiran tahay boqolkiiba 90 hab fikirka aad markaa u fikirayso 10% technical analysis kaagana waa mid aad ku dabaqi karto taa waxaan ula jeedaa fikirka saxan wuxuu kugu hogaamiyaa natiijo saxan ayuu kugu hogaamiyaa waxa kaa dhigi karo consistency ama qof joogteeya guulaha uu markaa ka gaarayo ama profitka uu suuqu ka samaynayo waxay ku xiran tahay mar waliba hab fikirkiisa ama qaabka uu markaa u trade gareeyo ee uu trade-ka u qaato waxaan tegi doonaa chartiska inagoo isla fiirin doona mid iyo hab fikirka marka dhigaal academy ay isticmaasho ama qaababka ay ula dhaqanto marka ay aragto in uu chartisku ama priceku qaab noocaas oo kaleeta u ciyaarayo ama uu markaa isku dhamaystirayo in aad faa'iido joogtayso waxay ku xiran tahay hab fikirkaaga tusaale cabsida iyo emotionka oo aad kontroosho ama aad xakamayso waxay kugu ridaysaa wadada guusha 80% haddii uu guulaysto hab fikirkaaga waxaa guulaysanaya waa trade-ka aad qaadatay ama aad ku jirto markaa oo aad ka ganacsanayso sabab ayay ugu guuldaraystaan dadka aanan adeegsan hab fikir saxan taa waxay ka dhigan tahay suuq selkiisa dhammaaday ayay seelgareeyaan suuq baygiisa dhammaadayna waa ay baygareeyaan in badan oo aan falanqaynayno ama aan cashiro bixinayno waxaad ku arki doontaan annaga oo leh suuq selkiisa dhammaaday oo aan bay ka sugayno ma seelgaraynayno suuq baygiisa dhammaatay oo top of the structure joogana bay 50 biib ah ama 60 biib ama 70 biib kama raadinayno ee waxaan beeshin ku noqonaynaa meesha aan joogno oo structure-ka marka uu soo dhamaystiro suuqi isaga ayaa noo imaanaya oo markaa ayaan ka ganacsanaynaa taa ayaa ah fikirka saxan ee markaa profit aad suuqa uga samayn karto balse haddii ay noqoto every single day waxaan rabaa in aan trade qaato maalin waliba oo dhalato waxaan rabaa in aan profit suuqa ka sameeyo entry ayaan suuqa ka raadinayaa trade ayaan doonayaa in aan qaato waxaana ii diiwaan gashan maanta in aan 300 oo biib 200 oo biib ama 100 biib in aan qabto taa waa fikirka short term-ka ah ee sida ugu dhaqsiyaha badan in aad ku taajirto aad u doonayso suuqii lacag uga samayso taana dhaqaalahaada ayaa ku burburaya niyad jab ayaad suuqa kala kulmaysa si dhaqso ah ayaadna suuqa markaa uga bixi doontaa aan isla fiirino chartiska iyo si aan u ogaano waxa rasmiga ah ee jira iyo hab fikirka saxan ee markaa aan ku fikirno halkan waxaan haysanaa euro USD waxaan mar waliba arkaynaa qaabka ay ku dhaqantay iyo waxa halkan cashir aan ka qaadan karno for example halkan waa double bottom-keena double bottom-kan aan ku sugannahay waxa aan raadinayno ayaa waxay tahay suuqii in aan jihadii bayda ahayd marka aan u galno for example annagu ma isticmaalayno wax la yiraahdo support iyo resistance istiraatiijiyadeennana kuma jirto balse halkan waxaad ka heli kartaa sirta markaa ku qarsan ee ah in aad uga fogaato support iyo resistance-ga ayna yihiin wax aanan faa'iido istiraatiijiyad aanan ku keenaynin ahna in markaa aad bannaan ilaa in aad ka marto for example waxaan ku daraynaa one candle waxaad arkaysaa in marka suuqii uu jebiyey double bottom-kaaga cashirkii ahaa qaababka loo jebiyo double bottom-ka ama loo tago double bottom-kaaga ama double top-kaaga trade line-kaaga intaba waa hab fikirka saxan ee aad markaa ku fikirayso ama aad ku dabaqayso istiraatiijiyadeeda si aad u ogaato waxa dhici doona annaguna marka aan aragno double bottom la jebiyey waxa aan sugnaa ayaa waxay tahay for example marka la jebiyo oo aan aragno si impulsive ah in loo jebiyey waxaan sugnaa correction-keena kadibna waxaan aragnaa in suuqii uu jihadiisii selka ahayd kusii soconaya anagu message markaan suuqa ka qaadanayno haddii aan weyno flaggan isla markiiba waxa aan helno waxay tahay
in retrace aan helno. Retracekaas marka uu price-ku ka kormaro double bottomkaas rail line-keena meesha uu noo yaallo waxaan helnaa waa flag, taa oo annagu fikirkeena saxanna siinayso markaa in sida khaldan dadka suuqa ugu jiro ee fikirkooda uu khaldan yahay in stop losskooda uu halkan suuqa uu ka qaadi doono, uu kasoo qaban doono, kadibna in uu jihadii bayda ahayd aadi doono. Sidoo kale halkan wuxuu ka qabanayaa dadka stop losskooda meeshaan dhigtay sida khaldan dadka suuqa ugu jiro ee isticmaalo support iyo resistance-ga. For example, markay arkaan candle-kan oo kale fikirkooda wuxuu yahay in suuqii uu sell sii aadi doono, sida haddii aad isticmaali jirtay support iyo resistance oo aad ogtahay marka la jabiyo supportkaaga inaad ku fikirayso in uu jihadii sell-ka ahayd suuqii sii aado, balse wax yar kadib waxaad arkaysaa in si momentum uu candle-kii uu jabiyey low time frame-ka iyo mar walibana lacagta waa lacag falanqeymaheennii gadaal haddii aad u raacdo aad arki karto ay duuban yihiin in aan sugayna lacagta oo aan ka sugayna jihada bayda. Mar walibana waa sida aan ku fikirno iyo psychology ahaanta retrace-ka inaan kadibna in aan falaaga qaadano. Taa waa tusaalaha koowaad. Tusaalaha labaad ayaduna waxaad arkaysaa adigoo u baahan keliya in aan si guud ku tuso in halkan uu ka yimid in aan jibinay double bottomkeena kadibna retrace in aan helnay. Sidoo kale halkan waxaad arkaysaa psychology ahaanta ku jirta iyo in aadan u baahnayn in support iyo resistance ay yihiin lugooynayso ama khasaarad mar waliba suuqii kugu ridayso in ay tahay qaabka loo jibiyey ayaad fiirinaysaa resistance-gaaga ama double top-kaaga sidee loo jibiyey. Waxaad ku fikiraysaa marka la jabiyo double top-kan in suuqii uu sii bixi doono ee uu jihadii bayga ahayd uu sii aadi doono. For example, halkan sidoo kale waxa ku yaallo resistance kale, taa oo ka dhigan resistance-gan haddii la jabiyo in uu soo retest gareeyo kadibna resistance-ga kale suuqii tago, taa oo ka dhigan tan in ay isku bedeli doonto support. Haddii aad soo isticmaashay oo aad ku trade garay jirtay waxaad arkaysaa sida ugu dhaqsiyaha badanba in uu yahay fikir khaldan isla markiiba in aad retrace candle in aad heshay aad arkaysaa, taa oo ka dhigan in mar waliba waan aragno in double top la jabiyo in aan sugno retrace-ka impulsive ahaan haddii loo jabiyo. Structure haddii loo jabiyana risk entry-giisa ayaan qaadanaa. Corrective haddii loo jabiyana iyadana impulsive-ka koowaad ayaan sugnaa, waa falaaga ayaan markaa qaadanaa. Waxaad arkaysaa qaabka loo jabiyey iyo sida uu markaa retrace-ka u dhacay, taa oo ka dhigan isla markiiba adigu in aad gasho kadibna khasaare inaad kala kulanto stop loss-kaaga uu isla markiiba suuqa kusoo dhaco. Adiguna markaa maskaxdii markaa ku xanuunto aad ku fikirto waa suuqa anigu iga soo horjeedaa, suuqa kaama soo horjeedo iyo fikirkaaga ayaa khaldan oo in aad markaa wax ka bedesho. Sidaa waxaad arkaysaa sidoo kale in uu jabiyey ayaad arkaysaa halkan oo kuu ahayd ayadana support area. Supportkan areahan uu isaguna jabiyey waa mid aad ku fikirayso suuqii fikirkaaga haddii uu saas u liito in aad markaa sell ku fikirto inuu suuqii sii aadi doono, kadibna waxa kugu imaanaya ayaa waxay tahay retrace candle kadibna suuqii jihadiisii bayda ahayd ayuu aadaya. Marka la jabiyo lowga ama meesha ugu hooseyso waa in aadan sell garaynin oo aadan sell ka raadinin qaybta hoose lacagta marka ay ku sugan tahay. Theory ahaanta markaan qoraalka kasoo sheekeynayna waxaan dhahnay waxyaabaha khasaaraha ugu badan dhaliyo ayaa waxay tahay dadka psychology ahaanta aad u liito in ay sell gareeyaan suuq sellkiisa dhammaaday oo low of the structure joogo ayay sell gareeyaan, suuq baydiisa ay dhammaatay oo markaa high oo intaanu buy aysan suuqii ku lug yeelanin ayay doonayaan in ay sii buy gareeyaan. Suuq meeshaan ahaa double bottomkaaga oo sellkiisa uu dhammaaday ayay sell ka sii raadinayaan asoo suuqii la kala wareegaya, taa oo macnaheedu tahay suuq sellkiisa dhammaaday in aadan sell ka raadinin, suuq baydiisa dhammaatayna in aadan buy ka raadinin. Waa midda ugu saxan iyo psychology ahaanta mar waliba aad fiirinayso marka aad suuqa ka ganacsanayso oo aad psychology ahaanta ay tahay inaad fikirto. Waxaan tegaynaa lacago kale iyo tusaalooyin badan oo aan isla fiirinayno
hab fikirka iyo markaa qaabka aan u fikirayno annagu iyo sida ugu saxan ee markaa suuqu uu mar waliba ku dhaqmo ayaa muhiim ah in aan isla fiirino aan isla aragno. waxaan haysanaa JBB haddii aan trade line-keena tirno oo aan fiirino hab fikirkeena iyo waxa aan ku fikirayno. For example, waxaan isticmaalaynaa support iyo resistance si aan u helno waxa saxan iyo markaa waxa ay yihiin right. halkan waxaa resistance-geena, sidoo kale meeshaan waa resistance oo support isku bedeshay, sida markaa ay tahay in aad istiraatiijiyadda qaab noocaas oo kaleeta aad u isticmaalayso. sidoo kale halkan waa meel support ah ama suuqii in uu yimaado aad ku sugayso. sidan waa waxa markaa psychology ahaanta ay tahay in hab fikirkaaga in aad ku qiimayso oo aad ku fikirto in aadan iibsanin lacag markaa aadan soo iibsan oo aad buy garaynin lacag buydeedii uu dhammaaday, lacag sell ahna in aadan sell garaynin, lacag sellkeedii dhammaadayna in aadan sell garaynin waa mid muhiim ah. sidaas darteed haddii aan jarno price-ka waxaan arkaynaa resistance-gen in la jebiyey ayaan arkaynaa. hab fikirkeena markaa wuxuu noqonayaa in aan jebino, sidoo kale resistance-geenan in aan jebinay, sidoo kale in aan resistance-geenan jebinay, halkaana in aan u soconno ayaan arkaynaa. For example, kana waa pattern, balse meeshaan waxa ay dhiganayaan ayaa waxay tahay resistance, qaab noocaas oo kalena in uu usii jebiyo suuqii. balse annagu waxa aan sugayno ayaa waxay tahay meeshaan in aan haysano. For example, haddii aan tirno support iyo resistance-ga iyo waxaan markaa meesha noo saaran, haddii aan tirno qaabka Digaal Academy marka ay u trade garaynayso iyo muhiim maaha, waxay yahay tusaale aan kugu tusay keliya support resistance-gaas iyo qaabka markaa hab fikirkaaga ah in aad u fikirto ay tahay markaa in waxaan arkaynaa in la jebiyey ayaan arkaynaa double topkaas in la jebiyey. double topkan la jebiyey waxa aan fiirinayno ayaa waxay tahay qaab noocee ah ayaa loo jebiyey, sidee ayuu suuqu markaa halkan aan uga fahmi karnaa annagu in uu ka samaysanayo meeshaan angle in ay lacagtu ka samaysanayso ama in pattern halkaa uu ku jiro. waa muhiim. waxaan arkaynaa in aan impulsive ahaan u jebinay, impulsive ahaantaas aan u jebinay. sidoo kale waxa aan sugayna waa retrace candle iyo in suuqii uu ka soo hoos maro price-ku trade line-kan, kadibna in aan helno formation ah. For example, in aan halkan helno impulsive kan in uu markaa noo noqonayo left shoulder, in aan helno head right shoulder noocan oo kale in aan pattern u helno. waa wejiga koowaad oo aan fiirinayno. wejiga labaad wuxuu noqonayaa halkan in aan ka haysano wax noo confirm garaynayo markaa pattern in uu halkaa isku dhamaystiray, oo ah in aan haysano 1 iyo 2 iyo 3 in aan haysano 3 taabasho oo halkaa ah. sidoo kale middle sectionkii patternka ayaan iyaduna haysanaa oo halkan si qurux badan inoogu yaala. hab fikirkaas markuu annagu waxa aan beeshinka u nahay ayaa waxay tahay in aan suuqii sell garayno meeshii aan ka buy garayn lahayn oo markaa looska uu ku imaan lahaa ama khasaaradu ay ku imaan lahayd in aad suuqaas ka raadiso jiha buy ah, suuq markaa reversal soo samaynayo oo jihada sell-ka ah markaas u aaday. waxa kale oo aan halkan uga faa'iidaysan raba ayaa waxay tahay JBY waa lacagta ugu badan ama lacagta koowaad ee xiriirka wanaagsan uu kala dhexeeyo head and shoulder-ka. sidoo kale halkan waa pattern aan entry-geena ka qaadanayno haddii aan markaa aad lose garayso ama aadan helin entry-gan. sidoo kaleeta entry-gan haddii aadan soo qaadan, meeshaan waxaan haysanaa waa treatage aan ka qaadanayno markaa entry-geena aan ka qaadanayno. waana siyaabaha markaa uu head and shoulder-ku marka uu jabsado neckline-ka qaababka markaa reversalka uu sameeyo iyo markaa sida aad uga faa'iidaysan lahayd oo aad markaa suuqii u sell garan lahayd. halkaa waxaan kugu soo gabagabeynayaa JBB
JPY waxaan isla tegaynaa lacag kale iyo hab fikirka marka aad ku fikirayso iyo qaabka marka uu kugu imaanayo suuqa USD JPY ayaan tegaynaa. waxaan isla aragnaa halkan USD JPY in aan haysano for example meeshan in ay tahay resistance area ama double top in ay tahay price-ka haddii aan jarno waxaan arkaynaa in loo jebiyey impulsive ahaan. hab fikirkaaga marka wuxuu noqonayaa in aad rayline-kan oo kale inaad isticmaasho meeshan oo kale in uu kuu yaalo isaguna rayline oo aad dhahdo halkaa ayuu suuqa sii tegaya sababtoo ah waa la jebiyey. waxaan u gelayaa suuqii jihada bayda waxaan rabaa in move-kan uusan idhaafin anigoonan ku lug yeelanin ayuu move-ka idhaafaya marka 30 bib idhig ilaa iyo targetkayga halka ayuu noqonayaa. meeshan waa resistance-gayga taa oo ka dhigan marka hab fikirkaaga gebi ahaanba inuu qaldan yahay oo suuqii adiga aad ka hor imaanayso aysan asagu suuqa uusan kaa hor imaanaynin. marka psychology ahaanta iyo hab fikirka aad u fikirayso waa in aad wax ka bedesho waa muhiim. waxaan arkaynaa isla markiiba in suuqii uu soo dhacay oo stop loss-kaaga ku dhuftay taa oo ka dhigaysa marka in aad gadaal u fikirto support iyo resistance-gana inaad ka fogaato aragtana qaabka marka uu price-ku double top-ka ama double bottom-ka uu soo reversal garaynayo iyo psychology ahaanta waxa aad ku fikirayso waa muhiim. marka qaabka ayadana waad arkaysaa oo lacag badan ayaan kuu tusaya psychology-ga iyo marka qaabka aad u fikirayso in suuq baydiisii dhammaatay in aadan bay garaynin suuq selkiisa dhammaadayna marka in aadan sel garaynin. sidoo kale waxaan ku tusayaa JPP USD ayaan ku geynayaa si aad u aragto waxa halkan ka dhacayo oo ah falanqaynteennii aan ku falanqaynay iyo waxa meeshan mar waliba waxaad arkaysaa in uu soo noqonayo hab fikirkan amaba psychology ahaantan inuu soo noqonayo. meeshan for example waa annagu waxaan u isticmaalnaa ayaa waxay tahay double bottom ama triple bottom in aan u isticmaalno taa oo ka dhigaysa hab fikirkeena in aan meeshan marka koowaad haddii aan jibino for example haddii aan dhahno halkan waa impulsive waa head meeshan waa left shoulder waxaan sugaynaa si qaab noocan oo kaleeta inaan impulsive-kan ku helno oo aan ilaa iyo lowgeyna lacagta la socono taa waa mid dhici kara balse muhiimaddu waxay tahay sidee ayaan anigu ugu lug yeeshaa qaabkee ayaan isku fikirayaa price-ku marka uu halkan joogo sideese u fikiraan dadka kale ee markaa isticmaalaya support iyo resistance-ga ama psychology ahaanta markaa aad u liito khasaarada markaa soo gaarsiin kara waxa ay tahay ayaa waxay tahay in aad sugto price-ka in uu jebiyey ayaan arkaynaa double bottom-kaas ama triple bottom-kaas. sidoo kale waa support aan dhahno support-kan waa la jebiyey waxa aad sugayso marka waxay tahay haddii aad istaraatiijiyad iyo qaab noocaas oo kale aad ku trade garaynayso psychology ahaantaada in aad markiiba emotion qaado oo aad tiraahdo anigoonan suuqii gelin ayuu baxayaa sidaas darteed stop loss-kayga halkaas ayaan dhiganaya waxaana rabaa in aan impulsive-kan in aan qabto oo kale qaab noocaas oo kale inaad u dhigato kadibna in aad ku fikirto ilaa iyo eriyadan in aad suuqa la socoto 600 oo bib ayaan qabanayaa ayaad leedahay adigoo markaa ku fikirayo in uu jebiyey support-kaaga in uu jebiyey kadibna sell uu suuqiisii aadi doono. balse waxa annagu aan isticmaalayno ayaa waxay tahay in aan helno laba weji oo ah in gebi ahaanba impulsive in uu yimaado kadibna aan helno falaagan kan oo noo xaqiijinayo waxa dhici doono ama message-ka dambe ee suuqa aan ka qaadan doono in uu yahay jihada selka in uu suuqii u sii dhici doono. waxa aan beeshinka ku nahay oo aan sii fiirinaynana ayadana waxay tahay in aan helno retrace kadibna in aan falaagan qaadano oo aan markaa jihada bayda aan markaa u qaadano. waxaad arkaysaa haddii aan balay garayno price-ka in isla markiiba stop loss-kaaga uu kugu dhuftay kadibna in uu falaag samaysanayo ayaan arkaynaa taa oo ka dhigan in uu suuqii isku diyaarinayo in jihada bayda ah uu suuqii markaa aado adiguna aad hab fikirkaaga ku fikirayso in uu suuqii markaa sell aado sababtoo ah kama aadan soo qayb qaadanin selkan double top-ka oo ah meesha aan kasoo sell garaynay
ogeyna qaabka uu markaa suuqa u reversan karay doono mar walibana heli maysid double topka in sidan oo kale ay labadaada taabasho si qurux badan u soo taabto waxaad arkaysaa sidan oo kale in double bottomkaaga in loo jebiyo kadibna retrace in aan sugno amaba in markaa corrective ahaan loo jebiyo ama structure ahaan in loo jebiyo ayaan arkaynaa sidoo kale halkan waa triple topkeena waxaana arkaynaa ayadana qaabka markaa aan u tagno sababtoo ah tradeku mar waliba uu noo furan yahay wuxuu nooga baahan yahay waa manage iyo sida aan u manage garaynayno tradekeena haddii aan helno in aan markaa reversal helaynana in suuqii aan markaa xiranno profitkeena haddii aan aragno in uu sii soconayana in aan markaa long term la soconno sababtoo ah JBP USD waxaan arkaynaa in ay samaysay impulsive large correction waxa aan sugayno ayaa waxay tahay in aan buygaas qabanno balse meeshaan ah area possibility waa psychology ahaanta meesha lagu kala haray oo ay tahay in aad hab fikirkaaga ka dhisto mar walibana aad ku fikirto in uu reversal halkaa ka imaanayo sidoo kale waxaan arkaynaa in price uu socdo ee uu jebiyey annagu waxa uu jebiyey maxay tahay wuxuu jebiyey resistancegaaga aan dhahno for example haddana waxaad ku fikirtay emotionkaaga suuqii buy ayuu aadi doonaa sababtoo ah buydan kama aadan soo faa'iidaysanin oo emotion darteed iyo cabsi darteed suuqii waad ka hartay kamana aadan faa'iidaysanin hadda oo suuqii joogo meel xasaasiya ayaad doonaysaa in aad buy garayso suuq buygiisii dhamaatay ayaad doonaysaa marka in aad buy garayso waxa kugu dhacayana waxay tahay isla markiiba in aad hesho suuqii in uu soo sameeyo retrace halkan oo ah meesha markaa aad arkayso in structure ahaan suuqii in loo jebiyey aad arkaysaa iyo qaabka markaa risk entryga annagu aan ugu qaadano oo kan in uu yahay aan arkaynaa batin in uu yahay at least 90% giisa ayaan markaa la soconaynaa kadibna waan sii manage garaynaynaa mar waliba break evenkaaga mar waliba waxaad soo sikinaysaa stop losskaaga adigoo profitkaaga ilaa iyo suuqu markaa haddii uu kaa saarana aad suuqii faa'iido ku xirato haddii kalena in aad la sii socoto oo aad markaa faa'iidada aad qaadato taa oo ka dhigan marka haddii aad ku fikirto in suuqii buy uu sii aado in aad khasaare la kulanto suuqiina marka aad arkayso in uu soo laabanayo keliyana ay kugu filan tahay qaabkee loo jebiyey double topkeyga qaabkee ayaa loo jebiyey taa waa waxa kugu hagayo wadada guusha iyo profit mar waliba qof consistency oo profitkiisa mar waliba sameeyo in aad noqonayso ayaad arkaysaa taa oo ka dhigan suuqii markaa in aad ku lug yeelanayso inta uu selkan soo aadayo waxaan tegaynaa lacagta ugu dambeyso oo markaan aan kusoo gabagabeynayno euro JBP ayaan kusoo gabagabaynaynaa euro JBP waxaan tegaynaa dailyga si aan halkan u fiirino waxa psychology ahaan ku jiro iyo qaabka markaa aan u fikrayno iyo hab fikirkeena sida uu markaa noqonayo for example halkan waxaan haysanaa aan dhahno n-term haddii aan isticmaalno meeshaan waa resistance waxaan arkaynaa in la jebiyey for example resistancegeena in la jebiyey aan arkaynaa haddii aad marka buy garaynayso suuq uu buydiisii ay soo dhamaatay hab fikirkaaga in uu qaldan yahay aad arkaysaa oo aad sugayso mar waliba retrace inaad sugto ama falaag inuu lacagtii meesha ka samayso sidoo kale halkan haddii aan jarno muhiim maaha inaan jarno balse waad arki kartaa qaabka uu markaa u jebiyey oo ah impulsive ahaan in loo jebiyey taa oo ka dhigan hab fikirkaaga suuqii buy ayuu aadayaa anigoo markaa ku lug lahayn ayuu buy aadi doonaa sidaas darteed emotionka way kugu khasbayaa in aad markaa haddii aadan controli karin emotionkaaga in aad suuqii buy garayso kadibna uu kugu dhaco retrace candleka in uu kugu dhaco ayaad markaa arkaysaa stop losskaaga uu ku dhaco suuqiina aad tiraahdo aniga suuqa ayaa iga soo horjeedo oo mar waliba jihada aan u galo maahan jihada kale ayuu suuq aadaa sidoo kale waxaan adeegsanaynaa trade lane-ka iyo rail lane-ka waa waxa annaga aan suuqan ku galno ama suuqan lagu hego jihada markaa price-ku uu aadi doono sababtoo ah meeshaan ah double topka annagu waxaan ku isticmaalnaa waxay tahay in possibility-ga ay tahay suuqa marka meel uu kasoo laaban karo meesha probability-ga ee aan ku sugayno suuqana in uu halkaa tegi doono
haddii uu suuqu jabiyo halkan waxay noqonaysaa in aan ku sugno meesheena oo ah meesha aan beeshinka u nahay oo aan kasoo seelgaray lahayn oo jihada seelka aan uga soo qaadan lahayn impulsivekaas faa'iidadana marka aan ku qaban lahayn. taa waxay noqonaysaa marka in mar waliba possibility-gana aan anagu qaadano trade-ka oo aysan noqonin keliya probability-ga in aan ku fikirno in uu suuq halka imaan doono balse possibility area double top railinka meesha aan saarno haddii aan helno reversal marka haddii aan impulsive aan u tagno iyo corrective aan mid waliba waa waxaad aqoon u leedahay waad cashirkeedii soo baratay marka halkaa waxaan ka dareemaynaa qaabka markii haddii aan price-ka burino waxaan arkaynaa in uu jabiyey ayaan arkaynaa isla halkaa oo ah meeshan double bottomka taa oo ka dhigan still in aad ku baraarugsanaato waxa halkan ka dhacayo oo ah in isla markiiba weegan inuu jabiyo kadibna uu kugu dhufto sidoo kale halkan haddii ay tahay meel ayadana aad ku sugaysay suuqa in uu jabiyey kadibna u qaab noocaas oo kale ah suuqa kugu sameeyo waa muhiim hab fikirkaaga oo saxnaado waxay ka dhigan tahay marka guusha suuqa aad ka gaarayso ay ka dhigan tahay ama qaabka markaa suuqa aad uga faa'iidaysan lahayd waxaad arkaysaa in uu jabiyey ayaad arkaysaa mar kale kadibna in uu soo taabtay trade lane-kaaga oo ah 1 2 3 meesha aan beeshinka ugu nahay oo aan ku sugayno suuqa waxaad arkaysaa si wanaagsan oo qurux badan haddii aan soo zoom gareeyo in aan soo taabanay aad arkaysaa in aan haysano 1 2 3 taa oo ka dhigan high probability areadeena in uu tagay suuqa kadibna in uu soo daatay meeshan oo kale waxaad arkaysaa in ay tahay resistance in la jabiyey kadibna in uu soo baxay taa waxay ka dhigan tahay marka psychology ahaanta in maanka aad ku hayso mar waliba in aad ka fogaato support iyo resistance-ga ayna tahay waxa gadaal kuu dhigayo runtii khasaaradana mar waliba kugu badinayo ee aad isticmaasho market structure-ka waxa uu price action ku sameynayo ayaa muhiim ah baatinkaas ayaan anagu isha ku haynaa waan fiirinaa anagu ku dabaqayno keliya trade lane-kan iyo rail lane-ka oo ah possibility iyo probability marka aan suuqa ka fiirinayno in aan helno labadaas weji mar walibana sida loo tago ayay ku xiran tahay iyo marka message-ka uu suuqu siiyo waxaan halkaa kusoo gabagabeynaynaa cashir qaabka psychology aad u fikiri lahayd iyo marka sidii aad trade-ka ugu lug yeelan lahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.